أولا السلام عليكم. سلامك بعدي أخيارتا قيمها iyo sharafta mudane. Waxaan ku soo dhawaataan marka koobaad waxaan rabaa inaan warbixin guud ka bixiyo hadafka aan channelkan u furay ama u asaasay waxa uu yahay. Hadafku waxa uu yahay uma talagelin channelkayga inaan qof ku macaarado, inaan qof ku dhaliilo, ama aan qof ku waxyeeleeyo. Hadafka aan channelkayga u furay waxa uu yahay inaan macluumaad dhaba idin soo gudbiyo, inaan warbixino idin soo diyaariyo, idin xiisayn geliya, inaan idin soo diyaariyo casharo muuqaalo ah oo ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah jirta, habka ay u shaqeyso. Runtii channelkaygu wuxuu inta badan diiradda saari doonaa in bulshadu ka wada faa'iideysato casharo la xiriira tiknoolajiyada, casharo la xiriira taariikh ah. insha Allah waxaan jeclahay isbuucyada soo socda in aan studio-ha ama barnaamijka habka aan idinkugu soo gudbin doono aan mar si live u soo galo haddii Allah awood la ogolaado. waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban ka hadlo. runtii waxaa jira wadamada horka maray oo kale waxay ku horumareen yacni xirfado isdheerihiin. annaga Soomaali ahaan xirfad maxaan naqaanaa, maxaase bulshadeenu aad ay ugu horumari karaan. baan rabaa inaan wax yar ka iraahdo inta aan wax ka fahansanahay. runtii Soomaali ahaanteena dadka xirfadaha gaarka yaqaana runtii waa aad baan u dhaliilnaa. hadday noqon lahayd dadka kabaha tola waan dhaliilnaa, hadday noqon lahayd qofka fundiga xirfadiisa waa lagu abuse gareeyaa ama waa lagu madabta kooraa. waxaa kaloo jirta qofka korontiistaha oo kale ayadana sidoo kale dadka la liido inta badan xirfadaha gaarka dad kale oo hibada u leh runtii waan dhaliilnaa. runtii wadamada horka maray oo kale hadda Japan oo kale 10 qofood oo wada socota 8 ka mid ah xirfad ayay yaqaanaan. runtii Soomaalinimadeena haddii aan 10 qofood oo wada socota aynu nahay, waxaa laga yaabaa 10keena qofood inuu hal qof xitaa aan laga helin xirfad yaqaan. runtii waa caqabad. iyadoo sidaas ay jirto aan ognahay caqabadaas baa misna waxaa dhacda qofka xirfadeena gaarka ay yaqaan inaan abuse gareyno ama aan dhibaateeno ama aan fuquuqno. runtii waxaan bulshada Soomaaliyeed u diri lahaa dadkeena xirfadaha gaarka yaqaana in lagu dhiirigeliyo, la xishmeeyo. sababtoo ah qofka maanta kabato lahaa haddii aan lagu ixtiraamin ama lagu qadarin shaqada uu hayo, runtii haddii ay dhacdo ifan shaqo gab u noqdo, waxaa la dareemayaa baahi meesha ka jirta ama culays fara badan ayay bulshadu dareemi lahayn. runtii dadka guryaha noo dhiso kale, fundiyada oo kale, haddii la waayo wax guriga la dhiso soo baahi meesha kasoo ifbaxaysa ma ahan. marka sidaas darteed waxaan bulshada kula dardaarmayaa dadkeena hibada gaarka ama xirfadaha gaarka, xirfadaha gacanta, hadday noqon lahayd mobile samayntii, kombiyuutaradii, dhar tolistii, korontadii, guryihii, makaanikadii, xirfad walba oo gacanta laga qabto qof walba oo yaqaana. waxaan idinkula dardaarmayaa inaan xirfadaha kobcino, qofka xirfadiisa lagu tixgeliyo, lagu amaano, lagu baraarujiyo si uu han u yeesho xirfadiisa inuu meel sare gaarsiiyo. runtii waxaan aad wallahi uga naxaa markaan arko qof xirfad leh haddana lagu abuse gareynayo, leeyahay waa noocaas, waa reer hebel, waa dadka laga tirada badan yahay, oo haddana qabiila lagu abuse gareynaa, xirfadii baa lagu abuse gareynaa. runtii marka qaarkood qofkaasi wuxuu kaga gudbi karaa asagoo la abuse gareynayo haddana shaqadan inuu nolol maalmeedkiisa ka raadsanayo ogyahay, wuxuu kaga gudbi karaa waa samar iyo iimaan fara badan. runtii aan caqliga ka shaqaysiino, fikirkeena saliimka ah, qofkan shaqadu noo hayo qiimihiisa aan garanno. ma fiicno qof shaqo noo hayo baahidiisa aan laga maarmi karin misna inaan dhibaateeno. runtii iyana waa qodob aan rabo inaan ka hadlo.
runtii markuu rabo dalka in lasoo dhiso kale horumarkiisa laga qayb qaato waa in la helo dad xirfado gooniya yaqaana. runtii boqolaal arday waxaad arkaysaa jaamacado kasoo baxay haddana sugaya shaqo. runtii qofka markuu jaamacad kasoo baxo asaga laftigiisa shaqo uu abuuran karaa, waa inuu skill asaga samaystaa. inta uu shaqadan cilmigan uu soo bartay wax ku saabsan uu shaqo ku helaya, haddana waxaa muhiim ah in yacni in uu xirfad gaar oo nolol maalmeedkiisa uu ku dabarayo inuu helo. dalka Hindiya waxaa laga helayaa kumanaan qofood oo shahaado bachelor, master, PhD wata, haddana skill ama xirfad u gooniya ay noloshooda ku dabaraan yaqaana. waxaad arkaysaa qof PhD ama master oo tagsiila, qof waxaad arkaysaa doobilaa, haddana waxaad arkaysaa qof cook ama kabalyeeriya sidaad u taqaanaan maqaaxida cunada gageenaya. Soomaaliya aad bay qofka asagoo cilmi bartay haddana skillkii ama xirfadii haddii ifan uu taragareeyo inuu shaqo meel ka bilaabo waa lagu abuse gareynaa. waxaa leeyahay intaas sanaa shaqo soo baranaysay ma haddaa bilowda haddana inaad noqotid kabalyeeri aad maqaaxi ka noqotid, qofkii dismoral baa ku dhacaya, shaqadii wuu iskaga tegayaa. sidaas darteed waxaa jira Soomaali fara badan oo markay halkan ka tagaan oo tahriibaan Yurub ama wadamadaas waxay ka noqdaan shaqooyinka ay dalka ayagoo joogeen ay ku qaban waayeen bay Yurubta kusoo qabtaan. waan wareystay mid kamida asxaabteeda kamida, hadda ma rabo inaan magaciisa carifo. wuxuu igu yiri niyow dalkii hadda aniga meel baan ka shaqeeyaa buu yiri, waxaan ahay maqaaxida dadka soo dhaweeyay serviceka geegeeya. dalkii haddaan ka noqdo uu dhahay caqabado fara badan baa la kulmaya, adigoo reer hebela miyaad maqaaxi ka noqonaysaa cooking, in lagu caayo, lagu aflagaadeeyo, caqabado far marka laguma shaqaysan kara ayuu yiri. marka sidaas darteed meeshan waxaan ku haystaa shaqo noocaas, noloshaydii ka fargareysa, haddana aan qiimo iyo xushmad ku helay. waad ogeedeen jigjiga arrinta ka dhacday, nin kamida dadka deegaanka u dhashay ayaa waxa uu ka furtay mashiinadan doobiga oo loo yaqaano kuwa yacni dry cleaning mashiinada waaweynka dharka lagu dhaqo. si marka asagana wuxuu ka ahaa ninka meesha iskala manager dad kale u shaqeynay. waad ogeedeen baa umaleynaya inaad social media ama BBC ka dhageysteen ninkii in la abuse gareeyay, reerkiisa ay dhibaateeyeen, ay yiraahdeen shaqadan bataatanba jooji. ninkan xirfadu uu kaga shaqeynaya Yurub haddii uu wadankiisa la yimi haddana uu wax ka faa'iidayo horumarna ay u tahay dalkii, waa loogu diidayaa. caqligeena ha shaqeeyo, caqliga saliimka markuu shaqeeyo waxaan aaminsanahay fikir saliim ayaa kasoo bixi kara. wadada aan ku socono haddii aan ku socono waxaan filayaa 20 sano hadda soo socota ama 100 sano hadda soo socota horumar inayna gaari doonin, yacni aana ka mid noqon doono wadamada dunida ugu liita. sababtoo ah waxa anaga leenahay dhaqan culture-ka aan leenahay ayaa waxa uu yahay dhaqan ceebeed. qofka asagoo dhibaateysan ama xaalad adag ku nool haddana wuxuu iskala weyn yahay ama qabweyne ay ku jirtaa shaqooyinka qaybtooda inuu ka shaqeeyo. haddana bulshadii baa waxay tahay bulsho qofkii ku abuse gareynaysa ama ku dhibaateynaysa dhaqankii ama qofka shaqada uu qabanay. ayna ka gudubno waa u baahannahay dhalinyaro oo xirfad taqaana nooc walba ay noqotaba. xirfadu waa wax qofka noloshiisa ama mustaqbalkiisa uu ku horumarin karo. tusaale ahaan haddaan tusaale yar idin siiyo, haddii aad taqaanid xirfadda computerka loo hagaajiyo, computerka wax loogu bedeli karo hardware haddii aad taqaanid, ma u baahan tahay inaad qof u shaqaysid haddana salary aad ku xisaabtanto? uma baahni. meel yar baad furanaysaa, waxaad ku xisaabtamaysaa salary qof inta u shaqeyn lahayd salarygaad qaadan lahayd lacag ka badan baa ku xisaabtami kartaa per week. marka aan try garayno caqligeena inaynu xirfado gooniya aan la inimaano.
intayna qof bili-aadan u shaqeyn lahayn. darajada shaqaalnimada qof walba uu soo maraa waana sida wax laga gudbo, laakiin annagoo dhan haddaan ku wada fikirno inaan xafiis wada fadhiisano ma suurtagelayso. qof walba wuxuu rabaa kii wax bartay iyo kii aan wax baranba labadaba waxay rabaan inay xafiis fadhiistaan si fudud ay ku shaqeeyaan. dad marka xirfad yaa noo yeelanayo, dalka yaa horumarkiisa ama dhismihiisa ama kobiciisa dhaqaalaha ayaa ka shaqeynaya never one. waa cidina qofka uu sugayo waa adiga waa aniga. marka sidaas darteed waxaan idinkula dardaarmaya dhalinyaro inaad xirfado gaara samaysataan, inaad dadka xirfadaha gaarka lehna aad ku baraarujisaan, aad ku dhiirigelisaan. janalkayga haddaa ku cusub tahay soo dhawow, farta ama suulka ku riix subscribe waa lacag la-aan, beelka ama gambaleelkana furo, wixii commentina halka hoose igu reeb. janalkayga waa Suldaan Shiga janal. insha allah ismaqal iyo is aragti dambe oo xiiso leh waxaan idinkaga tagayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.